marka horeba habluhu way necebyiin inay sodohdu guriga ku noolaato markay dadku isku bataan waliba sodohda markay timaado cuntada comment ka sameynayso milix waa bilaadadan inankayga wuu caatoobay waxa meesha uqdad baa imaanaysa waa la is aamin dhibaato badan hooyada inanka dhashun baa diidan tahay mise ilaa hooyada baa diidan tahay hooyadina haska joogto gurigeeda because waxan waa wax cusub ya waxaan rabnaa inaan challenge kan waa marriage weeyaan waa wax aad u culays badan mid kale adigoo xaajiga oo soo shaqeeyay maanta dhan waxa gurigii baad imaanaysaa anigoo afkii taagi waayo because hooyada ayaan isdinay ama wax naga dhacmaray maalintii during the day marka anigu waxaan oranayaa wali hooyada ma ka sheekaysateen ama ma kaaga sheekaysay markii iyada la guursaday sidii ahayd iyo sidii guriga loola noolaan jiray ha waxay tiri sodohyaasha gurigooda ha joogaan horta sodohdu way dhib badan tahay run baa fiican